السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي رير يوتيوب أدنا ندين ولا سلام يا بقول كيف بقول ما شاء الله والله شين حمد الشكري هالكاد قد هنا يسانا وحمد الناتشرالز كسور دوادا مانتا محاول ودناويان عاوا مانتا ومحل وذا أنا لأن dadka qaarna waxa laga yaabaa inay hameen tahay qaarna maalin aniga hadda hameen bay tahay marka ma sha Allah maanta program ka baxsan waxyaalaha naturalka ah aynu ka hadli jirnay ama beauty ama cunto haday tahay yara ka duwan baynu ka hadlaynaa ma sha Allah topic aad ay u baahan tahay Soomaalida munafacaadna umaleynay inoo wada leh nafteeda ma laga bilaabo yani wax kasta inay nafteeda ka bilowdo baa fiican aynu ka hadlaynaa waxa weeyaan topicaasina self esteem waxa weeyaan kalsoonida qofka kalsoonidu waa shay muhiim ah qofka bini aadamka inuu isku kalsoonaado qofka bini aadamka inuu han iyo hami leeyahay horumarna uu maaragtay hiigsanayo iyo meel sare ya qof himma caaliya waa shay muhiim ah markasta marka dadkii ayagoo wada raba himo iyo horumar inay sameeyaan ayaa badanaa waxaa ka hortaagan caqabadaas oo ah self esteemkii oo maaragtay daciifka ah self esteem waxaan kusoo sheegnay hankaago yar baqdinta dadku aad ka baqayso isla qofkaasi waxaas kugu dhihi doonaa qofkaasi maaragtay wuxuu halkaas kugu arki doonaa of course horta xishoodku wax wanaagsan weeyaan الحياة من الإيمان مرتاح حشودكنا حياتك waxay kamid tahay iimaanka qofkii iimaan leh oo baa maragtay xishooda oo qajila oo xumaanta iska wax wanaagsan taas laakiin inaad adoon xishoonaynin oo wax ka war badan iyo qof ka hadal badan iyo qof dadka ka daba galgal badan uusan jirin misna at the same time aadan cadkaaga goosan karin ama aadan banaanka wax cad ku dhihi karin laakiin ama qofka bagadaashiisa wad ku leedahay ama adiga baa markasta waxaad aaminsan tahay waxbaa la iga sheegay hebel baa neceb hebel baa saana waxaas ilmahaagiina waad baraysaa ama qofkii xataa ilmuhu noqon karaa qof weyn buu noqon karaa waayeel dhalinyaro meel dhexe caruur yar marka waxa weeyaan waa xanuun ama dadku waa shay dadka la nool ya sida xanuunada chronic-ga dadka ay ula nool yihiin baa maaragtay self esteemka uu dadka maaragtay low self esteemka uu dadka ula nool yahay marka sida kiniinka looga qaato xanuunada ayaa asagana waxaa maaragtay looga qaataa dadku galaasyo u qaataan dadku dad ugala hadlaan dadku konsalaarada ugu tagaan iyo macallimiinta hadda caruuraha markay iskuullada dhigtaan oo kale konsalaarka waa inaad u sheegto haddaad ilmahaaga ogtay inuu uu ma aragtay dareemayo markasta down iyo self esteemkiisa uu low ka yahay waa inaad macalinka u sheegtaa waxyaalo wadamada qurbaha kaliya ku xidhan ma ahan waa waxyaalo meel kastana ka dhacaan qof kastoo bini aadan oo feeling iyo wadnalana waa wax ku imaan karo oo la degi karo la maaragtay ku dhici kara marka haddaynu u guda galno waxa weeyaan kulli shay horta shayga aad ugu horeeyo markasta oo waxaad uga bixi karto awal shay aad uga bixi karto waxa weeyaan horta markasta inaad maaragtay alla moogiyaadan cid kale ka baqin bini aadankiisana aad u nabadgelisid cabsidaadana ilaah aad la u tala saaratid wixii aad ka baqaysid ilaahay u tala saaratid xumaana aadan faafin wanaagna cid kugu caayaysaa maba jirto aad ogaatid wanaag cid kugu caayaysa kaba soo qaad haddaan halkaan soo fariistay waxaa laga yaabaa ama wajigaygan qarinayo ama ma aragtay media qof soo galayba mar kastaba waxbaa laga sheegayaa qofkii la sheego la wado ayaana maaragtay wuxuu yahay dee waa lagu xasuustayba ya that means you are something marka laga hadlo ay dadka qaar yiraahdaan moogtahay marka marna dadku ayaga ku mashquul adigu maba ogid baan lagu mashquulsan yahayba ya marka iska soo qaad haddaadan anigu qofka ugu guusha badan waxa weeyaan qofka aan ogeynba in laga hadlayo iyo qofna waa qof istiilaya oo wogeen laga hadlayo laakiin wuxuu rabaa inuu maaragtay iska tiilo madaxa oo shaatiga kor u taagtaago kuleetiga laakiin mar kastaba adiga haddaad xumaan adduunka ku faafinaynin haddii maaragtay
هذا بوينت من قف وين وكلام كهلا يا قف وين sababta ilmaha ay marka laga hadlayana different wajh kale leedahay iyo case kale weeyaan iyo si kale iyo noocyo kale iyaguna ku timaada laakiin hadda qof weyn oo kale marka tahay ogow naftaada hoos ha u dhigin naftaada kor u qaad naftaada la hadal rabbi u tala saaro wax hadaad sameynaysid waxa tiraahdo okay waxan ilaahay dartii baan u sameynayaa anay ii wanaagsan tahay xumaan ma macaasiba waa may soomaha check mark samee buugan hadaad ii jeed aad ka dheehanaysaan halkan maxaa ku qoran وكان صوتي سوق دوغوبي ودوغ بوغ دوغا سنة عادو فربضان فيوريا سو جدا سو دوغي هاي لأن انت يرو السنة تلقى صاحة تاقو قرقرين مرمر ميلا انت كهلانا وحكو قرقرين مكان قتهو مركا وجه دا سور وجه حجاحمي مركا لأن محاكو قران some days يا مالمها قار وجدا يا someday you just have to create your own sunshine ياكل maalmaha ka mido adiga waxaad dhisan kartaa ma aragtay maxaa la dhahaa qoraxdaada iftiinkeeda ya waa iska mahmaha camal oo kale qoraxdaada iftiinkeeda waad dhisan kartaa marka calaashan waxa weeyaan adiga wax iska dhigi kara adiga maalin un wax noqon kara adiga un baa ma aragtay kor isu soo qaadi kara ya adiga un baa kor isu soo qaadi kara adiga un baa wax iska dhigi kara adiga un baa meel isgaarsiin kara iyo توكلت على الله وكفى بالله وكيلا إلهي أنا كنت رسالة مركز الله سبحانه وتعالى إسقى أنا وتا إسقى سامي أنا وذا ويثود الله محمد سمين كرنو لكن أديك أنا أسبابتي لا إمو أديك لا إمو أوكي وحن I can do it وحن وانك قابسنا يا وح يحن وديب وحن ما عرفتي هدي عن سميه وحبي يجمع إيمانا يان وفائدة الدنيا آخر وحكم هي marka qof weyn baa maskaxdaada ka shaqeysay wixii oo wanaag kuugu jirana qofna ha uga biqin qofna ha u daba fariisanin qofna ma aragtay ha ka sugin xataa inuu kugu amaano ya never ha sugin qof inuu ku amaano ama qofku yiraahdo waxan waa qof hebel qofkii waxa sameyn jiray Allah subhanahu wa ta'ala dartiisa loo sameeyaa ya rasuulkeena muxuu yiri qofku waxa ma aragtay ajar ugu filan ajar ma aragtay xataa wuxuu ka helayaa qodax uu dariiqa ka leexiyay qodax ama qori ama dhalo ama wuxuuna dariiq ka leexiyay marka kelmad kasto aad wanaagsan in qof kale uu ka benefit garaynayo ama qoraal kasto aad sameeysid oo qof kale ka faa'iideysanayo ama gabar walaashaay aad u sheegtay inay ma aragtay ka faa'iideyso adigu saas oo sheeg ya haystihin oo heblaay waxa ka hadlay heblo waxa ka hadlay uu ku soo caan baxaya saambu ahaanaya waxa weeyaan waa fikrad khaldan marka qofka inuu wuxuu yahay ku kalsoonaado sidoo uu yahay xataa sida Allah waa abuuray sidoo inuu buuray yahay inuu caata yahay inuu dheer yahay inuu gaaban yahay inuu ilka jaban yahay inuu dalool leeyahay you know just be happy what you are saatay ku faraxsano ku qanacsano ilaahay baa ku abuuray ilaahay wuu ku sii fadlay Soomaali buu ka dhigay Islaam buu ka dhigay dumar buu ka dhigay wuu ku shafray wuu كشفري شرف على كشفري عرب لاني قد شرف بكو سميي وكو أستري يا عورة هذه وكو قريي إلهي الدنيا آخر بعورة إنها أسترا ما عرفتي الحمد لله قف كانوا كشكريا وحاسودن markii aad dareentid maartay in dad wax u dheeryihiin waxa haysatid fiirso dadka ka hooseeyo fiiri hadaad rabtid diin in maartay aad waligaan haysdihin maxaa la dhahaye qof baa wax ku dheer ilaa diin mu ogiye ya waxaad arkaysaa gabar qurux badan ilaahay qurux siiyey ilaahay Soomaali ka dhigay ilaahay ma aragtay maarin iyo masciideed oo ninkii ma aragtay heesay gabay heesmi miruune wuxuu yiri waxa tahay masciideed maarin dalaal xiga waxa soo galay calaashan hadda pointu wuxuu ila galayaa gabdhaha iyo dadka sideen isku cadaynta iyo waxaas marka adoo masciideeda xataa inaad inta jirkaagii bedesheed oo ma aragtay aad iska dhigtid qof oo boor iyo dambas oo eego kale sidaad sun isu marinaysay xataa taasoo kalsooni xumo waa ilaahay ku takrafal oo Allah subhanahu wa ta'ala ayad maartay sidoo ku abuuray kalsooni ku ahayn markasta sidaa u eegtay ku kalsoono
go-aanadaada ku kalsoonow. qofka bini aadamka yes way fiican tahay inuu dad la tashto, inuu ma aragtay waxa uu markaa ka guuxayo uu qof bini aadana u istikhaarayso, wixii inuu istikhaarayso kabacdiina qof muumina la tasho ya rabbiga u tala saaro. qof muuminana ma aragtay mutaashu la shawro kala sheekayso oo wanaagsan. marka yes bini aadam baan nahay, fikrad labaad waa u baahan nahay, laakiin waxaad arkaysaa qofka oranaya anigu dadku waxaasay ku samaynayaan, hebalow lama tashanayo, weligaala afaarahaaga qof kale ha u sheegin. of course afaarahaaga iyo dhiibkaaga iyo privatekaaga ma wanaagsana. hadda anigu wejigayga iima jeedaan, laakiin ma aha inay kalsooni darro aan wejigayga hadda u qarinayo. maxaan u qarinaya? waa my private ya, waa privacy-gayga. marka qofka privacy-giisana markasta waa la respect gareeyaa, waana la xushmeeyaa. malaayiin youtubers oo hadda baa jiro oo maaragtay cadaan, madow, oo ajaanib kale, carab, oo bini aadamka millions waxbay u faa'iideeyaan. misna weligaad wejigooda ma arkaysa. qaar baa qoraal bas ku faa'iideeya, qoraal kaliya waxa kaliya qorayaan baad akhriyaysanaysaa bas ya. marka adigu qof wax faa'iideeya ahow, naftiisana ku kalsoon, wuxuu faa'iideynayana maaragtay rajo wanaagsan ka qaba. one dayna maaragtay xataa qoraal uu meel ku qoray ha ahaadee maaragtay qof kale oo bini aadana ay caawin doonto. haddaa maaragtay physical wax u faa'iideyn kartid, oo wax dhisi kartid kaba soo qaad, oo wax abuuri kartid, oo maaragtay waxyaalo heedhad kale oo maaragtay samafal weyn samayn kartid, kasii fiican waxaa laga faa'iido. balse yaynan kalsooni darro yaysan kugu noqonin caqabada kaa joojisa in aad horay u socoto ya. kalsooni darradu hankaagu har gaaro heer sare ayaanan maaragtay gabaraan geerideeda maqalin aan ka maqli jiray. hankaagu ha gaaro heer sare yes. qofka walaalkaaga kelmadaas hadda gabadhaas uun baan anigu aan maaragtay u nasbaynaya, lianna first person aan ka maqlay waa iyada. qofka markaad wax ka maqashidna isagana waa inaad meel ugu qortaa, lianna waa wax wanaagsan. marka hankaagu ha gaaro heer sare, hana maaragtay hana lahawna himadaadana hoos ha u dhigin. hima caaliya waa inay ku saaran tahay, waa inaad horumar, waa inaad meel hiigsanaysaa, waa inaad point leedahay, waa inaad direction u socotaa, waa inaadan ku mashquulin hebel baa i fiiriyey, hebel baa neceb, hebel baa eegay, hebel baa igu qoslay, hebel ha iska qoslo, hebel iska adigu horay u soco, dee dadkuna ha hadle. marka waa saas. iyo maanta programkaas hadalkaa yar ee aan u arkay hopefully inuu dadka qaar wax ka bedeli doono. wixii aad ka aragtaan, wixii aad ka u malaynaysaan, waxaad kala soo baxdeen, wixii aad ugu kordhinaysaan, wixii ma aragtay aad ka reebaysaan, wixii dalqaafa, wixii wanaagsan geedi waxaan idinka wada fadhiyaa inaad igala soo sheer garin kartaan. open baan u ahay su'aalihiina, waanadiina, supportkiina, wax kastaba. marka waxaan leeyahay bartaad ka dhehanaysaan waa Xamda Naturals, walaashin Xamdi Shukri. maanta iyo self esteemka oo wax yar oo jis hordhaca aan ka soo qaatay. marka insha Allah hankaagu ha gaaro heer sare, horumar aakhiriyo adduun barajee. weligaa ha is oranin qof bini aadana ayaa wax ku dheer ilaa diin ma ogiye ya. diinta na waa inaad ku tartantaa ya. falyatatanaafasil mutanaafisuun ya. diinta xataa celinaysaa ugu tartama, lianna diinta waad u quuraysaa qofka inuu maaragtay kuu dheer yahay, laakiin weligaa sidaada kale ogow Allah subxaana wa tacaala inaad qof dhammaystiran aad tahay ya. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.